shirkadda soo dejinta daawooyinka ee Laamin Pharmaceutical Company ayaa maanta tababar u furtay dhammaan howlwadeenada ka howlgala farmasiyada magaalada Burco. Tababarkan oo ka dhacay Hotel Jare ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasin Xaaji Saleebaan, gudoomiyaha shirkadda soo dejinta daawooyinka Laamin Engineer Mubaarak Cumar Xasan, dhaqaatiir iyo waliba howlwadeenada kala duwan ee ka howlgala gobolka Togdheer. Tababarkan ayaa waxaa fududeysay shirkadda soo saarka daawada macaanka Nova Nordisk oo shirkad guud ahaanba caanka ah dhammaanba wadamada adduunka oo dhan. Wareentiba waxaa tababarkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda soo dejinta daawooyinka Laamin Pharmaceutical Company Engineer Mubaarak Cumar Xasan, waxaanu faahfaahin ka bixiyay ujeedooyinka laga leeyahay tababarkan iyo waliba sida shirkadda Laamin ee soo dejinta daawooyinka ay loo diyaar tahay bulshada reer Soomaaliland inay soo dejiso guud ahaanba daawooyin tayo leh. Waxaana uu yidhi shirkaddan Laamin Pharmaceutical Import Company waxaa la aasaasay sanadii 1991 bishii June iyadoo laga aasaasay magaalada Burco. Marka waxaynu oran karnaa Burco waa hooyada Laamin dhashay, taasina waa mahad gaar ah. Shirkadda Laamin Pharmaceutical Import Company waxay ku jirtaa shirkadaha ugu waaweyn dalka, waxaana ilaahay mahadiya inay shirkaddu iyada oo ku bilaabantay farmasi yar oo aad u yar magaalada Burco inay maanta ku jirto shirkadaha wadanka ugu waaweyn ee dalka daawooyinka soo geliya. shirkaddu waxay leedahay 12 farac ama laamood oo ku yaala Soomaaliland iyo Soomaaliya. shirkaddu waxay si toos ah daawooyinka uga soo dejisaa in ka badan 16 wadan oo ay ka mid yihiin dalalka Denmark, UK, Hungary, Turkey, Qobrus, Belarus, Iran, Malaysia, Masar, India, Emirates iyo Australia iyo Yemen. shirkaddu waxay in ka badan 35 shirkadood oo ah certified company-ga oo daawooyinka isugu jira baraanka iyo kuwa generiga ay ka keentaa, iyadoo shirkaddu ay sole agent u tahay multinational company ama shirkadaha caalamiga oo ay ka mid yihiin shirkadda Nova Nordisk oo shirkadda maanta inoo martida seminaarkan ku saabsan macaanka ee farmasiyadana jeedinaysa oo uu nagala joogo Master Shambal Amare oo product advisor shirkadda Nova Nordisk. shirkadaha kale ay shirkaddu sole agent ka u tahay waxa kamid laba shirkadood oo laga leeyahay dalkaasi Iran oo Exir Pharma iyo Farabi Pharma. sidoo kale shirkaddu waxay agent u tahay shirkadda Nabi Qaasim. sidoo kale waxay shirkaddu agent u tahay laba shirkadood oo dalkaasi Australia oo Evan Euro Pharma iyo Instantina. waxa bushaara oo maanta shacabka Soomaaliland u soo hoyatay inay shirkadda Laamin ay ku guuleysatay inay dalka soo galiso dawo aad loogu baahan yahay oo dawada xanuunka stroke ama faaliga dadku ku dhaco ama dhiigu madaxu kaga furmo. maanta dalkeena dawadaas waxaanu ku guuleysanay ka shirkadahan inaanu ku soo korinay dawada la cerebrolizine oo horumar aad u weyn oo bushaara shacabka u soo hoyatay. Saleebaan Cigo isagoo ka hadlayay afka shaqaalaha ka howlgala farmasiyada magaalada Burco oo isaguna tababarkaasi ka hadlayay ammaan ballaaran u soo jeediyay shirkadda soo dejinta daawooyinka Laamin oo ku tilmaamay inay tahay shirkad wax badan ku soo kordhisay tayadii daawooyinka la keeni jiray gudaha dalkani Soomaaliland. anigoo Saleebaan Cigo Cabdi kuna hadlaya magaca farmasiyada Burco waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wholesaler Laamin oo noo soo kordhiyay seminaarkan lagu qabanayo magaalada Burco. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasin Xaaji Saleebaan isaguna tababarkaasi hadalka ka soo jeediyay ayaa waxa uu ammaan ballaaran u soo jeediyay shirkadda Laamin ee soo dejinta daawooyinka, waxaanu ku tilmaamay inay tahay shirkad guud ahaanba wax ka tartay soo dejinta daawooyinka gudaha dalka Soomaaliland. Laamin waa shirkad weyn oo anagu waligeed aan wada shaqeynay inta ay wadda kala joogay daawooyinka way keenayeen wax badan way tarayeen runtii. maanta waxay noo sheegeen inay soo kordhiyeen oo ay daawooyin cusubna keeneen, shiraaga waaweyn ay la soo xidhiidheen, quality control meelana ay sameeyeen ay ku xidhmeen oo ku taala waddan kale. ku amaanaya runtii in iyagu markii ay inaga awood u weynay inay isku dayaan in iyagu meel kale kasoo cadaystaan. ilaahay waxa ka rajaynayaan inuu dhaqso u gaadho kulli hay'adii inoo samaysan tahay waana la wada hawsha. barnaamijkan maanta la ka soconaya dawa barnaamij runtii aad u miisaan badan oo aad u culus waxanuun runtii aad u culus. xanuunada wadankeena imka ku soo kordhaya maalin walba soo kordhaya aad iyo aad u fara badan ayuu ka mid yahay. caalamka oo dhan marka la eegana waa xanuunada runtii culus buu ka mid yahay dhibta badan ku haya bani aadamka.
shirkadda soo dejinta daawooyinka Al-Amin Pharmaceutical Company ayaana ahaan tababarkii ugu horeeyay oo furto shaqaalayaasha kala duwan ee ka howlgala farmasiyada magaalada Burco. Khalid Bakeyle, shabakada caalamiga ee Ictiraaf News, Burco.